kulanti wacan daawadayaal halkan waa janalka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Soomaaliya iyo Somaliland oo hawada isku mariyay hadallo kulul iyo Muuse Biixi oo sheegay in uusan doonin la midoobida Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble oo si rasmi ah xilka ula wareegay ballanqaadyo muhiim ahna soo bandhigay xidigle Buule Xuseen oo lagu dilay magaalada Muqdisho kulamo ka socda cadaadii madaxweyne Qoorqoor oo khilaaf kadib bilaabay qorshe isku tashi ah Kenya oo ciidan soo gelisay Soomaaliya kadib markii ay sameysay marsiyo dibadbaxyo ka dhan ah ciidamada Kenya oo ka sii xoogeysay gudaha gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo kulan ka yeeshay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo guddiga farsamada soo xilisa baarlamaanka Hirshabelle oo gaaray magaalada Jowhar waa axad taariikhduna ay ku beegan tahay 27 Sebtembar 2020 u diyaar garooba saaxiibayaal qodobada aad daawateen oo dhameystiran Soomaaliya iyo Somaliland ayaa hawada isku mariyay hadallo kulul iyadoo Muuse Biixina si cad ugu sheegay farmaajo la midoobida Soomaaliya inaysan dooneynin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo Muqdisho kaga qayb galayay dood furan oo looga hadlayay arrimaha siyaasadda iyo kala guurka dalkan Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan arrimaha ka taagan dalka gaar ahaan doorashooyinka wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland iyo xilliga rasmi ahaan ay u bilaaban doonto doorashada dalkan Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland 2 sano ka hor ay bilowdeen isla markaana Somaliland ay ku daashay raadinta aqoonsi caalami ah taas oo dhalisay in Somaliland ay ka carooto hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo xilliga rasmi ahaan la bilaabayo isagoo sheegay in bisha Oktoobar dhamaadkeeda la bilaabayo arrimaha doorashada iyo soo xilista baarlamaanka isla markaana bisha Febraayo 2021 doorashada dalkan la aadi doono wuxuu sidoo kale ka hadlay Somaliland iyo arrimaheeda qadiyadda gooni istaaga isagoo si kulul uga hadlay arrintaasi balse waxa ka jawaabay hadalkaasi madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuuna si kulul ugu jawaabay hadal uu madaxweynaha Soomaaliya ka sheegay dad ku saabsaneed arrimaha doorashada 2021 madaxweyne Farmaajo oo hadal ka jeedinayay doodaas ayaa sheegay in Somaliland aysan gooy karin isla markaana ay midnimada Soomaaliya tahay mid muqaddasa Muuse Biixi oo isna u jawaabayay Farmaajo ayaa yiri shantii Soomaaliyeed inay midoobaan reer Somaliland koobay ka yihiin laakiin aqliga siyaasiyiinta xamar jooga iyo shan madaxweyne ma yahay kii Soomaaliya isu keen lahaa ayuu yiri sidoo kale wuxuu hoos ka xariiqay in madaxweyne Farmaajo isagu uu yahay qofka wax ka socon la yihiin sida hadalku uu dhigay Farmaajo waxaan leeyahay ha tilmaamin midnimo wadaagii taababka u jaray ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si kasaba hadalladan kulul ee ay dhanka warbaahinta isku mariyeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa ku soo aaday xilli dhawaan wadahadallada labada dhinac ay dib ugu bilowdeen dalka Djibouti iyadoo dib u dhacyo badan soo wajaheen wadahadalladaas u dhaxeeyay Somaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya Ra'iisul Roblena maanta ayuu si rasmi ah xilka ula wareegay isagoo ballanqaadyo dhowr ah sameeyay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta si rasmi ah xilka ula wareegay munaasabad ka qabsoontay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha kadib markii 23 bishan ay codka kalsoonida siiyeen xildhibaanada golaha shacabka si hayaa xilka Ra'iisul Wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ka warbixiyay shaqooyinkii muhiimka ahaa ay soo qabteen golihii wasiirada isagoo u rajeeyay Ra'iisul Wasaaraha cusub in rabbi ku guuleeyo mas'uuliyadda adag ee u adeegida shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ku amaanay kusimaha Ra'iisul Wasaaraha Mahdi Guuleed Qadar iyo xubnaha golaha wasiirada xilka sii hayay howlihii adkaa ee ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee la soo dhaafay isagoo uga mahad celiyay golaha shacabka kalsoonida ay siiyeen Ra'iisul Wasaaraha ayaa muujiyay arrimaha mudnaanta iyo hortobinta u leh xukuumaddiisa oo ay ugu muhiimsan tahay arrimaha amniga doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha cadaaladda iyo adeegga bulshada sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa xusay inuu soo magacaabi doono qabiir sharci oo baaris iyo dabagalba ku sameeya tacadiyada jinsiga ee la xiriira kufsiga lagula kaco haweenka iyo carruurta taasoo ku sababatay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka isagoo kaashanaya hay'adaha cadaaladda dalka ayuuna ballan qaaday Ra'iisul Wasaare Roble in wax badan taas laga qaban doono golaha shacabka ayaa cod aqlabiyad lahaa ku ansixiyay Maxamed Xuseen Roble kadib markii loo magacaabay inuu noqdo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muddada ka harsan xilhaynta dowladda hogaamiyo madaxweyne Farmaajo balse buuqi ka taagnaa cid xil ku wareejinaysa Roble ayaa meesha laga saaray kadib markii maanta xilkaas uu ku wareejiyay Mahdi Maxamed Guuleed oo ahaa kusimaha Ra'iisul Wasaaraha taasina ay khilaafsan tahay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maadaama Ra'iisul Wasaarihi xilka laga qaaday ahayd in xilka uu ku wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha cusub taasina filla Soomaaliya gabi ahaanba
ay laashay. xidigle buule xuseen ayaa lagu dilay magaalada caasimadda ah ee muqdisho. allaha u naxariistay waxaa qaybo ka mid ah magaalada muqdisho maanta lagu dilay xidigle buule xuseen oo ka mid ahaa booliiska Soomaaliyeed. marxuumka ayaa waxaa toogasho gaadmo ahaa ku dilay rag ku hubeysnaa bisoolado kuwaasoo goobta isaga baxsaday falka kadib. wararka qaar ayaa sheegaya in marxuum buule oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada ammaanka u xilsaarnaa sugidda amniga xarunta golaha shacabka Soomaaliya. sidoo kale waxaa goobta dil ka dhacay daqiiqado kadib tagay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliyeed oo goor dambe halkaasi ka qaaday meydka marxuumka. ciidamada ayaa sidoo kale bilaabay baaritaano dheeraad ah oo lagu baadigoobayo kooxdii ka dambeysay falkaasi. ilaa iyo hadda ma jiro wax faahin ah oo hay-adaha amniga ay ka bixiyeen toogashada loo geystay sargaalkaasi. muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhacay falal ammaan darri ah oo badan, dilal qorsheysan iyo qaraxyo miinooyin ah. kulamo kala duwan ayaa ka socda Cadaado iyadoo madaxweyne Qorqorna uu khilaaf kadib bilaabay qorasho isku tashi ah. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo dhawaan gaaray Cadaado gobol Galguduud ayaa waxaa soo ifbaxaya khilaaf culus oo ka dhaxeeya saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee beesha Ceer. khilaafkaas ayaa ku haya gaadiidkii iyo hubkii ahlu sunna oo mar kale ku laabtay gacanta Jenaraal Mas'uud Maxamed Warsame oo horey u ahaa taliyihii ciidamadii ahlu sunna ee markii dambe ay la wareegtay dowladda federaalka. waxaana wareejinta gaadiidka iyo hubkaas oo ku xareysnaa madaxtooyada xilkiisii ku waayay taliyihii ciidanka laga madaxtooyada Galmudug Najiib Xirsi Dhoore. Qorqor ayaa Cadaado uga sii gudbi doona magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug halkaas oo uu tababar ugu soo xirayo ciidamo cusub oo ku biiraya daraawiishta Galmudug oo dhawaan asaaskooda bilowday. horey waxaa deegaanada Galmudug uga taagnaa khilaaf u dhaxeeyay saraakiisha beesha Ceer ee ka tirsan dowladda federaalka oo isxulfaysay iyo wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo haatan dantu biday aasaasidda ciidan daraawiish ah oo ay yeelatay Galmudug. Qorqor iyo Fiqi ayaa hadda xoogga saaraya sidii ay u dhisi lahaayeen ciidamo daraawiish ah oo toos uga amar qaata maadaama ay isku xumaadeen saraakiisha hogaaminaysa qeybaha ciidamada ee dowladda federaalka jooga deegaanada Galmudug. wasiir Fiqi ayaa waayihii dambe deganaa Galmudug wuxuuna waday ururinta maleeshiya beeladyada iyo hubkooda isagoo koox kasta deegaan uga furayay tababar si uu u soo saaro ciidan daraawiish oo ka amar qaata Galmudug madaxdeeda. madaxweyne Qorqor oo khilaafkaas awgiis isaga bedelay taliyihii ciidanka gaarka ahaa ee lalada madaxtooyada Galmudug ayaa dowladda federaalka ka dalbaday ciidanka Haramcad oo dhawaan la geeyay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. dowladda federaalka oo ka jawaabaysa dalabka Qorqor ayaana Dhuusamareeb ciidankaas ka dejisay kuwa oo tiradooda lagu qiyaasay 200 oo askari. dibadbaxyada ka dhanka ah ciidanka Kenya ayaa weli ku sii xoogeysanaya gobolka Gedo. dibadbaxyada ka dhanka ciidamada dalka Kenya ee ka socda gobolka Gedo ayaa marmar ka dambaysa sii xoogeysanaya kuwaas oo ka dhashay kadib toogashay ciidamadaas u geysteen dad shacab ah oo aan waxba galabsan. barnaamijyada oo galay maalinkii saddexaad ayaa mar kale dib uga bilowday magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. boqolaal shacab oo ka careysan dhibaatooyinka ay geysanayaan ciidamada Kenya ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaaladaasi si ay u cabiraan dareenkooda. sidoo kale dibadbaxyadan ayaa saameyn ballaaran waxay ku yeesheen dhaqaaqa guud ee magaalada iyo ganacsigeeda. dadka dhigay dibadbaxa ayaa ku qaylinaya ereyo ka dhan ah ciidamada Kenya waxaana dalbanayeen in gebi ahaanba laga saro dalka oo dhan. kacdoonka ay wadaan shacab ku dhaqan gobolka Gedo ayaa ka dhashay kadib markii 3 qof oo shacab ahaa ay ciidamada Kenya ku dileen deegaan hoosaga degmada Ceelwaaq ee Gedo. si kastaba dibadbaxyada oo sii xoogeysanaya ayaa dhinaca kale ciidamada Kenya waxay weli wadaan dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka iyadoo 4 qof oo kale saacadihii la soo dhaafay ee afduub uga geysteen deegaanka Daarusalaam ee hoosaga gobolka Gedo. guddiga joogtada golaha shacabkana waxay yeesheen kulan looga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya. guddiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay maanta kulan ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. guddiga ayaa kulmadooda waxay uga hadleen shuruucda taalla golaha shacabka iyo sidii loo kala horumarin lahaa ama mudnaanta kuwaad loo kala siin lahaa si xildhibaanada uga doodaan una meelmariyaan muddo xileedka inta uga harsan. sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay sidii shaqada baarlamaanka loo kordhin lahaa isla markaana inta waqtiga baarlamaanka harsan loo dardargelin lahaa tayada waxbarashada dalkan Soomaaliya. kulanka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Mursal iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibrahim Muudey. ugu dambeyntiina guddigii farsamada soo xilista baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa gaaray guddiga farsamada soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabelle kuwaas oo tan iyo markii la magacaabay ku sugnaa gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar waxaa xubnahan gudigan ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle waqtigoodu sii dhamaanayo iyo maamulka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Gudiga farsamada soo xilista baarlamaanka labaad ee Hirshabelle oo ka kooban 12 xubnood ayaa waxay maamaha socda gudageli doonaan shaqadooda ku aadan soo xilista baarlamaanka labaad ee Hirshabelle. doorashada Hirshabelle oo buuq badan uu ka taagan yahay ayaa la filayaa in dhawaan ay ka bilaabato magaalada Jowhar iyadoo wali aan lagu heshiin xildhibaanada iyo soo xilistooda iyo xilliga rasmi ahaan ay bilaabanayaan doorashooyinka maamulkaasi. guud ahaanna daawadayaal wanageynta warka galab ee Capital TV tan iyo kulan dambe nabadgelyo.